qaraxaas lagu soo waramayaa inuu ka dhashay qasaare u badan mid hantiyadeed. wariyaha Shabeelle soo feesanay ayaa ka waramaya. qof goobjooga ayaa xaqiijiyay in gaari yar oo ku qarxay nawaaxiga isgoyska Soobe uu saameeyay gaadiid kale iyo goob ganacsi. wararka ku saabsan qaraxaasi ayaanan sheegin in qasaare nafeedi jirtay oo ka dhalatay baabuurta uu qaraxu holciyay. ciidamo kuwa ammaanka ah iyo gaadiidka damiye dabka ayaa goobta soo gaaray waxaana jirtay hakad ku yimid in muddo ah dhaqdhaqaaqii dadka iyo baabuurta. waxaa ka dhacay qarax agagaarka Soobe anagoo joogna marka gaariga kolba wuxuu ahaa gaari lagu soo xiray qarax oo marka hore weysay hal mar qaraxa waxaan ka helnaa in qarax dhacay oo gubasho iyo saameyn ka dhacday gaari kale ku dhaganaana wuu saameeyay mid kale saddexaadna waa jiray kaas ninkii lahaa hore intuu golo ka baxay meesha aga baxay marka gubashaasi tawaarkay gubasha jirtay oo labadii gaari baa isla gubatay boorar meesha ah way saameysay ugu dambeyntii waxaa ka soo gaaray dadweyne iyo ciidamo oo eeyada waa la xiray qasaaraha meeshaas ka dhashay ma sheegi karo walaalkay oo maxaa yeelay markaas meeshu aad uguma dhaweyn balse kor baan ka fiirsanahay qofka lala beegsaday inuu qaraxaasi beegsaday in kale lama ogaan karo jawiga meeshu hadda waa degan tahay gaariyaashuna waa marayaan meesha hadda balse daqiiqado ka hor meesha dhan waa xirneed askar baa joogtay ambalaas baa joogtay oo waxa isku socodka gaadiidka kulli waa kala go'naayeen goob ganacsi oo electronic aheyd oo waxaa jirta boorkooda uu guftay albaabkooduna xoogaa gubasha ay gaartay balse gudaha aysan dadkaas ugu gudbin oo markiiba laga gaaray dadka shacabka ah oo meesha joogay waxdii ka gaaray iyo wax ciid ku shuba ay ahayd. wararka qaar ayaa waxa ay sheegayaan in booliisku ay gacanta ku dhigeen in looga shakiyay in gaarigaasi uu qaraxa remoodka ah uu ku qarxiyay markaasi waxaana wararku ay tibaaxayaan in laba ruux oo dhaawac ahna ay jiraan. qaraxan ayaa waxa uu imaanaya xilli muddooyinkii ugu dambeeyay ay magaalada Muqdisho ka nasatay qaraxyada noocan oo kala ah. saraakiil ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed ayaa tababar loogu soo xiray magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay. tababarkaas ayaa la xiriiray arrimaha nabadgelyada iyo sidii ay booliska iyo shacabka wada shaqeyn lahaayeen. Cabdiqani Bashiir ayaa inoo waramaya. kusimaha taliyaha ciidanka booliska Koonfur Galbeed Soomaaliya ahna taliyaha booliska gobolka Baay gaashaanla dhexe Amiin Maxamed Daruur ayaa tababar ugu soo xiray magaalada Baydhabo ciidamo ka tirsan booliska Koonfur Galbeed Soomaaliya si ay uga qayb qaataan xoojinta nabadgelyada guud ee gobolada Baay iyo Bakool. tababarkan oo socday muddo 6 cisho ah isla markaana ciidanka la barayay hanaanka ay ula dhaqmi lahaayeen shacabka iyo dhowridda xuquuqda aadanaha ayaa waxaa ka qayb galay saraakiil ka kala socotay gobolada Baay iyo Bakool. qaar ka mid ah ciidankii ka faa'iideystay tababarku waxa ay sheegeen inay gaarsiin doonaan askarta kale ee aan nasiibka u yeelan ayna ku dhaqmi doonaan cashiradaasi. kusimaha taliyaha ciidanka booliska Koonfur Galbeed ana taliyaha booliska gobolka Baay waxa uu sheegay sidoo kale in saraakiishan ay ka kala yimaadeen gobolada Baay iyo Bakool loona baahan yahay inay xoojiyaan la shaqeynta shacabka. waxaa la idin tababaray sidii aad u badbaadin lahaydeen shacabka deegaanada Koonfur Galbeed habdhaqanka qofka loo soo xiro eedeysanaha ah iyo dhowridda xuquuqda aadanaha ayuu yiri gaashaanla dhexe Amiin. wasiirku xigeenka amniga Koonfur Galbeed mudane Isaaq Barow waxa uu sheegay dhankiisa in booliisku uga mahad celinayo sugidda amniga magaalada Baydhabo isagoo kula dardaarmay inay si hufan u gutaan waajibaadkii loo idmaday. si kastaba ha ahaatee tababarkan loogu soo xiray ciidamada iyo saraakiisha ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed magaalada Baydhabo ee gobolka Baay ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli dhawaan madaxweynaha Koonfur Galbeed mudane Cabdicasiis Laftagareen uu shaaciyay in dhawaan la isku furayo wadooyinka ay go'doomiyeen dagaalyahana ka tirsan Al-Shabaab maadaama uu sheegay in wadooyinkaasi ay yihiin kuwa lafdhabar u ah bulshada ku kala sugan gobolada Baay iyo Bakool loona baahan yahay in la isku furo wadooyinkaasi si shacabka deegaanadaasi ay si sumida ugu adeegtaan. dhinaca kale taliska qaybta booliska gobolka Nugaal ayaa garowe ku soo bandhigay waxyaabaha maanka duuriya. arrintan ayaa ku timid kadib howlgal ciidamada ammaanku ay ka sameeyeen gudaha magaaladaas oo xarun u ah Puntland.
wararkii ugu dambeeyay waxaa soo koobaya Ismaaciil Daahir Cabdullaahi Shiine. saraakiisha booliska maamulka Puntland ayaa sheegay in howlgalla ay sameeyeen xaafado ka tirsan magaalada Garowe ay ku soo qalqabteen dhalinyaro u abaabulan koox kuwaasi oo dhac iyo furasho u geysta dadka shacabka ah waxaana dhalinyaradan inta badan ay adeegsadaan maandooriyaal halis ah sida qamriga iyo xashiishka sidoo kale saraakiisha ayaa sheegay in dhalinyaradan kaliya aysan adeegsan maandooriye balse ay saraakiishu sheegeen in ay jiraan dad kale oo ka ganacsada qamriga iyo xashiishka kuwaasi oo inta badan si dhuumasho ugu iibiya gudaha magaalada Garowe taliska ayaa digniin adag u diray dadka ka ganacsada iyo kuwa isticmaala maandooriyaasha waxa ayna ku hanjabeen in talaabo adag laga qaadi doono cid kasta oo falkaasi lagu soo qabto maahan markii ugu horeysay oo ciidanka booliska maamulka Puntland howlgallo noocan ay ka sameeyaan magaalada Garowe oo caasimad u ah maamulka Puntland. gaari ay la socdeen dad shacab ah ayaa dhac loogu geystay inta u dhaxaysa magaalooyinka Balcad iyo Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe. wadadan oo xiriirisa labadaas magaalo isla markaana muhiim u ah isku socodka ayaa muddooyinkii dambe waxaa ka jiray amni darro baahsan. jaamac kadiya ayaa warkan faahfaahinaya. wararka ka imaanaya qaar ka mid ah deegaanada hoos yimaada magaalooyinka Jowhar iyo Balcad oo ka wada tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa saacadihii la soo dhaafay dad shacab ah oo ku safrayay halkaasi ayaa dhac baahsan loogu geystay ilo dadka deegaanka ah ayaa Shabeelle u sheegay in dad rayd ah oo saarnaa gaari nooca hoomeyga ah ayaa dhac loogu geystay inta u dhaxaysa Balcad iyo Jowhar gaar ahaan deegaanka Boorow oo hoostaga degmada Jowhar ee gobolkaasi sidoo kale goobjoogahan ayaa intaasi ku daray in dhacaasi ay geysteen kooxo burcad ah waxayna dadkii shacabka ahaa ay ka furteen wax allaale iyo waxa ay siteen waa sidoo hadalka u dhigay goobjoogahani gaadiidka salaamada magaalada Muqdisho oo degmada Jowhar oo dhaxlo barxalba kooxo waxana wadada u gaadiidka dhac aalo geystay waa la rasaasay dilbari dadka oo Soomaaliya ka inuu hadda dhibaatana soo meesha sababta laakiin dadkii xawska ugu wada dhigay fariido salbranta inuu kooxo waysan waayo oo kullu hadda la aqoon oo wadada galo mararka qaar ay waxa macna muddooyinkii dilmeeda waxaan soo soo laabtan wadada yimaadaan wadada galaan marka gaadiidka xiliyada habeenkii dhacayay santa inuu horta meesha dinka warma masuul akaasi meesha meel hadda oo masdeegaan ee dawladda degmada meel oo wada awaanta muddooyinkii dambe ayaa waxaa adkayd in dadka shacabka ah iyo gaadiidleyda isaga kala goosha wadada xiriirisa magaalada Muqdisho iyo gobolka Shabeellaha Dhexe in ay wadadaasi kala kulmaan dhac baahsan iyo mararka qaar oo ay burcaddu ay rasaas hubiso gaari dad rayd ah ay saaran yihiin waxaana ka dhasha khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac intaba. baarlamaanka Puntland ayaa maanta meelmariyay miisaaniyadda sanadka soo socda 2020 oo ku shaqeyn doono maamulkaasi. xildhibaanada golaha wakiilada ee Puntland ayaa maanta cod aqlabiyad leh ku ansixiyay miisaaniyadda maamulkaasi ee 2020 kadib kulan ay ku yeesheen magaalada Garowe ee xarunta gobolka Nugaal. kulankan ayaa waxaa soo xaadiray ilaa 44 mudane kuwaas oo dhammaantood cod gacantaaga ku meelmariyay miisaaniyadda Puntland ee 2020 mana jirin ciddii ama ka aamustay codeyntaasi. miisaaniyadda la ansixiyay xukuumadda madaxweyne Siciid Dani ayaa waxaa arbacadii la soo dhaafay soo meelmariyay golaha wasiirada ee maamulka Puntland. sidoo kale miisaaniyaddan oo ah tii ugu badneed ayaa waxaa ku jira lacag loo qeydiyay howlaha horumarinta sida dhismaha wadooyinka burbursan ee maamulkaasi. waxaa kaloo ku jiro adeegyo bulsho aasaasi ah sida hirgelinta ceelbiyoodyo, horumarinta waxbarashada, caafimaadka iyo sugidda amniga. guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka ayaa maanta shahaadooyinka ku-meelgaarka ah guddoonsiiyey ilaa aan ku celiyo halkaasi dhegeystayaa. guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka ayaa maanta shahaadooyinka guddoonsiiyey ilaa 6 xisbi siyaasadeed oo cusub kuwaas oo si ku-meelgaar ah loo diiwaan geliyey. mutawakkil ayaa ka waramaya. guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka ayaa maanta diiwaan geliyey ilaa 6 xisbi siyaasadeed kuwaas oo shahaadooyinkooda guddoonsiiyeen. xisbiyada shahaadooyinka la guddoonsiiyay ayaa ah kuwa si ku-meelgaar ah loo diiwaan geliyey. 6 xisbi siyaasadeed ee cusub ayaa kala ah
xisbiga qaran xisbiga horusocodka shaqaalaha xisbiga dhaqdhaqaaqa xisbiga saanu xisbiga midnimada iyo xisbiga hoggaan qaran guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka ayaa sheegay in ilaa hadda axsaabta siyaasadeed sida ku-meel gaarkii u diiwaan geliyeen ay gaarayaan ilaa 63 xisbi. وهجاج دقيستيال هالكاس نقدر صعطان وشبه لجود ورك دبدا يعني آدي دونا بالسمركان تريك عجان كبوليس كسوماليا يا حريقة كجر صندوق عصب ولقيه جريء ديجان كبلنبلة قبل كجلجدود لنا عكلة مع مولد بودلاني قل مدوك يا كوده هاللي حوجنتا أمنيك قال كعيو عالجا ضياور كان إنه صدري hogaaminaya taliya ku-xigeenka ciidanka booliiska qaranka Soomaaliya General Kariif oo maalmihii ugu dambeysay howlo shaqo ku jooga deegaanada dowlad goboleedka Galmudug ayaa kormeer ku sameeyay deegaano ka tirsan gobolka Galgaduud si uu ugu koorgalo ammaanka deegaanadaasi. wafdiga uu hogaaminaya General Kariif taliya ku-xigeenka ciidanka booliiska qaranka ayaa soo maray deegaano badan oo ay ka mid tahay Cabud Waaqa iyo sidoo kale deegaano hoostaga asagoo halkaasi dadka ku dhaqan kala hadlay xoojinta ammaanka iyo nabadgelyada. taliya ku-xigeenka ciidanka booliiska qaranka General Kariif ayaa xariga ka jaray saldhig cusub oo laga hirgeliyay deegaanka Balanbal ee gobolka Galgaduud kaas oo ka qayb qaadan doona xoojinta ammaanka isla markaasna ciidamada ammaanku ay adeegsan doonaan. taliyaha ayaana kormeerkiisa ugu dambeyn ku tagay magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud asagoo halkaasi kulamo kula qaadan doona mas'uuliyiinta Galmudug iyo sidoo kale saraakiisha ciidamada ee halkaasi ku sugan. dhanka kale tan magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka Mudug waxaa kulan ku yeeshay mas'uuliyiin ka kala socday maamulada Galmudug iyo Puntland. kulanka waxaa looga hadlayay xoojinta ammaanka waxaana mas'uuliyiinta kala hogaaminayay labada duq magaalo ee Gaalkacyo u qaabilsan maamulada Galmudug iyo Puntland. kulanka waxaa qayb ka ahaa saraakiisha ciidanka magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug waxaana looga hadlay xoojinta ammaanka iyo sidii looga hortagi lahaa kooxo tuuga ah oo xilliyada qaarkood dhac ka geysta magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. intii uu kulanku socday waxa lagu guuleystay in la kala celiyo gaadiid ay dhaceen kooxo siyaabo kala duwan magaalada Gaalkacyo dhac uga geysta iyagoona laamaha amnigu ay wacad ku mareen inay fulin doonaan awaamiirta madaxda sare ee Galmudug iyo Puntland si looga hortago falalka amni darro. mas'uuliyiinta Galmudug iyo Puntland ayaa muddooyinkii dambe ammaanka iska kaashanayay waxayna hoosta ka xariiqeen muhiimadda ay leedahay in si wadajir loo wajaho sugitaanka amniga gobolka Mudug. cali xasan barqada xaliga wararka Shabeelle Galmudug. halka warkaasi aad kala socotaan waa shabakada warbaahinta Shabeelle. mudaharaadyo taxan ah oo laga cabanayo sicirka shidaalkii kordhay ayaa weli ka socda qaybo kamid ah dalka Iiraan. dalka gebi ahaantiisaba waxay dadku isugu soo baxeen dariiqyada oo ay ka bilaabeen mudaharaadyo laga soo horjeedo hogaamiyaha sare oo ay